بسم الله الرحمن الرحيم وما سنت ولا مقعي ومصطفى عبد محمد كانت ترسل جولها على قرنك قابل سنة كحجينك ديارينته هيكسية قرن شركة لبدو كي لحنك أفرتي مع المدود بيسي وحنا شغلي هالكن وحنا لكل مني قيبها كالدون بالشدة سي أنا أول ما يصيرنا هيكسية قرن شركة وبيشان دمات كده إن شاء الله لصوب بندقي دونه وحاوي ودني صدح لا تشي أو كلا دوين أما صدح بلر أو كلا دوين صدح هذا بلر كيجو ري وحاوي صوب لوني كودي بيشا وحوها إن كابياش دقالة في استركتشر طبعا ودك كلا تشين إني وزارة لها وحاوي مام قبل هذا جناح ستة إن كاس كديب وحان بلونين أن لا تشي كسمينه تيركا horumarinta bulshada ama waxa weeye human capital development-ga maanta waxaan u joognaa inaan la tashi la sameeyno bal Soomaaliya waxa weeye boqolkiiba 90 ganacsiga iyo dhaqaalaha waxa maamulaha oo ma gacanta ugu jiraan waxa weeye waa private sector-ka annagu waxaan rabnaa in taa doorkeeda la sii xoojiyo oo dawladda waxa weeye kala nidaaminteeda fududeynteeda kala xadeynta ganacsiga ay noqoto oo ay fududeydiso laakiin maadaama boqolkiiba 90 ganacsigeena ay maanta maamulaan private sector-ku waxaan rabnaa taas inay noo noqoto modelkii dhaqaalaha waddanka lagu horumarinayay annagu taa ka duulana maanta waxaan halkan u joognaa berrito in la tashi lala sameeyo ganacsiyada gaarka loo leeyahay iyo doorkeeda ay ku yeelan doonaan horumarinta higsiga qaran jirka walaal waa su'aal fiican vision-ku wuxuu ka kooban yahay 6 qaybood oo 6 qaybood labada qaybood ugu horeeyay ay yihiin dawlad wanaaga iyo dawlad awood oo karaan leh laba qaybood oo kale oo dhinaca dhaqaalaha oo waxa weeye oo wada dhaqaale waxa weeye socialka ugu horeeyay aan dhaho oo ka saddexaad dhaqaalaha ku xiga horumarintiisa iyo natural resources-ka bilarka shanaad oo ah waxa weeye infrastructure-ka kaabayaasha dhaqaalaha iyo ka lixaad oo ah in waxa weeye aynu gobolka ka faa'iideysano isku xulkiisa marka tusaale hadaan ku siiyo vision-ku Soomaaliya waxaan rabnaa 2060 inay ku biirto wadamada dakhliga dhaxale haddaan sii jejebiyo taas waxaan uga jeednaa maanta qofka celcelisaan Soomaaliga waxa soo gala $700 wax ka yar baa soo gala xilligaa waxaan rajaynaynaa qofka Soomaaliga inay soo galaan $6,000 iyo ka badan haddaan tusaale labaad ku daro dadka Soomaaliyeed maanta inta wax qortay wax aqrida waa 50% xilligaa waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed inay awood u leeyihiin 95% iyo 5 inay wax aqriyi karaan dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha waxaan ka taaban karaa Soomaaliya waxay leedahay wadooyin kooban oo